Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada janalka maanta waxaa idin haynaa war weyn oo ku saabsan kooxda Liverpool taasoo la sheegaya in heshiis hordhac ay la gaartay tababaraha reer Spain ee Ariola si uu u noqdo macalinka cusub ee kooxda. Maxay tahay sababta Liverpool ay u dooratay Ariola? Maxaase noqon doona shaqooyinka ugu horeeya ee sugaya marka uu yimaado Anfield? Dhammaan faahfaahinta warbixinta aynu ku eegaynaa marka nala joog ilaa dhamaadka. Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis hordhac ay la gaartay Ariola si uu u noqdo tababaraha cusub ee kooxda kadib markii shaqada laga eryay Arne Slot oo 2 sano maamulayay kooxda. Ariola oo hore u maamulay Bournemouth ayaa noqday dooqa koowaad ee maamulka Liverpool. Xogaha la helaya ayaa sheegaya in tababarahani uu mudnaanta siinayay shaqada Liverpool ka hor inta aan la ciirin Arne Slot. Wadahadalada labada dhinac ayaa si degdeg ah ku socday maalmihii ugu dambeeyay iyadoo Liverpool dooneysay in heshiiska ay dhamaystirto ka hor bilaabashada koobka adduunka 11 Juun 2026. Sida u muuqatay qorshahaasi wuu guuleystay. Wariyaha caanka ee suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano ayaa xaqiijiyay in Liverpool iyo Ariola ay gaareen heshiis isagoo adeegsanaya ereygiisa caanka ah "Here we go", taasoo inta badan muujinaysa in heshiisku dhammaaday. Ariola ayaa Liverpool ku imaanaya kadib xilli ciyaareed cajiib ah oo uu la qaatay Bournemouth, wuxuuna kooxda geeyay Europa League markii ugu horeysay taariikhdeeda, isagoo sidoo kale ku hogaamiyay inay ku dhameystaan kaalinta 6aad ee Premier League. Bournemouth waxay ururistay 57 dhibcood taasoo noqotay rikoorkii ugu sarreeyay ee kooxda abid ay ka gaarto Premier League, waxaana kaliya ka maqnaa waxay ahayd 3 dhibcood si ay ula mid noqdaan Liverpool oo ku dhameystay booska ugu dambeeya ee Champions League lagu tago. Intii uu Bournemouth maamulayay, Ariola wuxuu gaaray 48 gool, 38 barbaro iyo 41 guuldaro 127 kulan oo uu hogaamiyay kooxda dhammaan tartamada. Sidoo kale Bournemouth waxay xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ku dhameystay iyadoo aan laga badin 18 kulan oo xiriir ah oo Premier League ah. Marka uu yimaado Anfield, Ariola waxaa sugaya shaqo weyn. Taageerayaasha Liverpool waxay rajeynayaan inuu dib u soo celiyo qaabkii weerarka xawaaraha sare ku dhisnaa ee kooxda lagu yaqiinay xilligii Jurgen Klopp. Qaab ciyaareedkiisa weerarka badan ee Bournemouth uu ku soo bandhigay ayaa sabab u noqday in taageerayaal badan ay u arkaan inuu yahay shaqsiga ku habboon inuu kooxda dib ugu soo celiyo heerkii hore. Dhanka kale, Ariola uma baahnaan doono inuu waqti badan ku bixiyo arrinta Ibrahim Konate maadaama la filayo inuu kooxda ka tago isagoo xor ah bisha soo socota. Laakiin waxaa jira arrimo kale oo muhiim ah oo u baahan xal degdeg ah, gaar ahaan mustaqbalka Virgil van Dijk, Alisson Becker iyo Curtis Jones. Waxaa sidoo kale la filayaa inuu la shaqeeyo agaasimaha ciyaaraha ee Ricard Hughes si loo diyaariyo qorshaha suuqa kala iibsiga xagaagan, iyadoo la sheegayo in durba la aqoonsaday dhowr ciyaaryahan oo ku habboon qaab ciyaareedkiisa. Haddii heshiiskan si rasmi ah loo xaqiijiyo, Ariola wuxuu noqon doonaa ninka loo xilsaaray dib u dhiska Liverpool iyo soo celinta kooxda heerka ugu sarreeya ee kubadda cagta Yurub. Haddaba adigu maxay kula tahay Ariola? Ma yahay tababaraha ku habboon Liverpool? Ma awoodi doonaa inuu dib u soo celiyo guulihii waaweynaa ee kooxda? Aragtidaada noogu reeb qaybta faallooyinka. Haddii aad ka heshay warbixinta, ha illoobin inaad nagu taageerto like, share iyo subscribe si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta.